waxaan uga jawaabayaa ugu horeyn cabdiraxmaan cabdishakuur saaxiibkay waxaan leeyahay waad hadashay arrin diin ku lug labaad ka hadashay dawladdu kuma dhihin hadal oo arrin diin la xiriirta ka hadal waa lagu haystaa culimo badan oo dhinacyo badan leh ayaa ku haysato arrintaada ridisay markaas arrintu arrin eedayn dawladeed iyo hebel baanu ishaynaa iyo hebel baa si gaara dan iiga leh maaha arrin balaaqo iyo aftahanimo u baahan maaha waa arrin siiriyasa oo diiniya oo u baahan inaad isbari yeesho adduunkaaga iyo aakhiradaadaba inaad isbari yeesho marka ciddii aad ishaysaan ha kuu dambayso marka ugu horraysa waxaa loo doonayaa inaad isbari yeesho aakhir iyo adduunba oo arrintaa laguu haystay culimmadu kuu haysato aad iska bari yeesho mar labaadka anigu haddaan u nasteexeeyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo la taliyo waxaan kula talin lahaa inuu banal culimaa qabto oo yidhaahdo warkayga dhegaysta maxay qabtaa diintu ka qabtaa warka aan idhi haddii ay dhahaan sidii aad sheegtay qalbigaaga tiri wuu ahaa wax dembiya maad gelin waad isbari yeesha haddii ay dhahaan waxaad u baahan tahay inaad toobad keento masaajidka ugu weyn tagoo toobad keen marka waxay u baahan tahay arrintani waa arrin diiniya oo la rabo si diiniya in looga jawaabo ayaa loo baahanya markaas kadib ciddii aad ishaysaan iyo ciddii dangaara kaale iyo ciddii aad iska celinayso iyo markaad isberi yeesho iska celi laakiin arrinta haddu maaha arrin u baahan raganimo arrin u baahan balaaqo arrin u baahan hebel baanu ishaynaa waa arrin diiniya wey مسألة اسمك لقى صوتك عبد الرحمن وحد دولته كأدي هذا الوجدي حسن داهر أويس أو كأدم إن أكوكو في دينته دولتنا أرنت على كلا شقيس ما يتحطلي وحكة شرا مالي حسن داهر أويس هديه حبس يقولوا كشرو حقوق بقول لي تلفون إنه حايس تلفون كيسو كو هذا هو دقلي تكنولوجيا ده يا أسامح ده لكن دولة ميديا ومجيني ومدهن ورصادو isaga oo arka diintiisii la soo weeraray marka waxay ka ogtahay dawladuna haba yaraatay ma jirto arrin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo hadalkii uu yiri iyo diintu waxay ka qabto xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo kitaabka quraanka wuxuu ka qabo arrin ku xidhan waa mahadsantahay wasiir cabdiraxmaan markuu hadlayay meelaha uu ka hadlay waxa kamid ahayd inuu shaki geliyay in xiriir ka dhaxeeya dawladda iyo waxa loogu yeeray argagixisada taas in laga jawaabo mudna waayo dawladda Soomaaliyeed oo dhami waxay u taagan tahay waa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada dawladda Soomaaliya waxay u taagan tahay iyo waxa ay la dagaalamayso iyo ummadda Soomaaliyeed waajibaadka ay u hayso oo ugu horeeyo inay amnigooda soo celiso nabadgelyadooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda soo celiso alqaacidada Soomaaliya ka ciribtirto mandateeka ugu weyn wey budgetkayga 43% ka badan amniga sugistiisaan ku bixinaa la dagaalanka argagixisaan ku bixinaa marka kaas aqli marka shaqeynaya ama gadmaya ama macquul ah ma marka saaxiibka cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan leeyahay arrin diiniya oo aanan ku dirin adigu gashay ayaa culimo kugu haysataa waxaanad uga bixi kartaa oo kaliya aniga taladayda qaab diini ah